taintaasaan ku dhaafaya qodobka labaad arrin baa soo noqnoqda dad dhallinyaraa iyo calamo la soo baxa baa la leeyahy dowladda infacti wax badan oo caynkaasa kamaan maqale laakiin shacabka hargeysa jooga waxaad moodaa marka la yidhahdo boorama maxaa ula calamaa lala soo baxay oo ciyaar baa calama la soo baxay in dareen iyo si khaasa loo dareemaya baad moodaa oo looga damqanayo nin jooga Soomaaliland magaalo degan oo aan xamar joogini ma jiro ra'iisul wasaare ku-xigeen baa jooga wareerkiisa ra'iisul baarlamaan baa jooga aqalka sare xukuma wareerkiisa waxaa markaa dadka qaar uun ay damqashadu uga imanayso maan garan maalin dhowta waxaa igu maqaalaa waaba soo wadaa wasiirka maaliyadda aqallu halkan ku leeyahay waa reer boorama daaruu ku leeyahay fooqya halkan hargeysa kuwa ingiriiska ka yimaadeen fooqyada kule unbuu la mid yahay maalin dhoweyto waxaa la sheegayay wiiluu dhalay oo la xidhay nin wasiire oo wasiirada dowladda ah oo ku eedaynaya bayle wuxuu ku leeyahay aqallo hargeysana waan maqlaayayba dee wuxuu kuwa ingiriiska iyo dibadaha ka soo shaqaysanaya kaga duwan yahay oo isaga loo fanteeya maba garanayaba waxaa kaloo jira ciyaarka laleeyahay calamay la soo baxeen waa kii hadda oday ka hadlaayay cid kastaa ku jirta reer hargeysaa ku jira kuwa boorama laleeyahay calamay la soo baxeena yaryar reer hargeysa qaara baa ku jira reer ceergaabaa ku jira reer berberaa ku jira reer raasacnood baa ku jira qaar Soomaaliya baa ku jira jaamacadaha ayay dhigtaan maxaa ku ururiya leedahay airportka jaamacadda kama samaysnayn libaaxu waxaan ku soo gabagabaynayaa Soomaaliland waa loo simeeyaa dadka la sheegaya in la calamay la soo baxaan calanka state-ka Soomaaliland u taagan kuwii sameeyay iyaga reer boorama wey yaa igu beeninaya heesta calanka yaa sameeyey reer boorama sameeyey aasaaskii dowladnimo xaguu ka saldhigay reer boorama sameeyey haddii aanu dadkeennu min ceelaayo ilaa lawi cadda u dhannayn dowladnimada halkan oo xaqsoor aanu wada helin oo hadday doorasha dhacda aanu golayaasha ka wada muuqan oona soo wada gelin waa haddii darajo kale la qaybsanaya aanay u sinaanin anu garan maayo macnaheedu waxay ku dambaynayso waxaan dadka ku gabagabaynayaa waxay Soomaalidu tiraahdaa waxa aroosi doonaysa carabka ahada waxaan mar labaad ku celinayaa waxa dadku uga damqanayo marka inay yar baa soo qaatay leeyahay calan oo boorbu ka soo baxay leeyahay si gaar ah looga damqanayo ay dadka u kuleelinaysa u damqayso ma garan waxa ku halka jooga loo arki laayay ee beela daar halkan ka jeexday loo leeyahay ku hargeysa jooga ee madaxda ka xamraysa ka darajada sareeyana looga damqan laayay loo hadal qaadi laayay ma fahmin bal la isku noqdo oo dib inta la isku soo noqdo nacayb iyaan hoosta iska nabcaano iyo inaynu wax iska sheegnaa haddii wanaagsan tahay daanu garan maayo waxay dhali doonto ay ku ima doonto waxa la dadku isku niyad tabaado dadkuna waxa weeyaan nin kasta oo wadanka jooga waxbuu soo qabto waxaan leeyahay dadka hormuudka u ah beelaan dhahay kuwa hormuudka u ah waxaan leeyahay beelaha berigii burco iyo nin reeraas qoray ama dadka baran iyo halkaa degaa ayaa wuxuu waryaareen waxaa tiraaheen ingiriis bay naga kacay ingiriis nala kiciyaa tirahdeen waaye marxabaan idin nala qaado haddana xamar nala geeyaa tirahdeen marxabaan idin maantana waan soo celinaynaa nala soo celiyaa tira waan nala soo celinaa war berberita meel kale ha u kaxaynin buu berita meel kale ha u kaxaynin ilmaada reer naga daa yidhi wax kale kari mayne meel kale loo kaxaynina markaa waxaan leeyahay caadifadda ha la iska daayo iyo cidnacaysiga iyo damqashada cid gaara laga damqanayo ha la iska daayo waxaan filayaa inaanay wanaag inoo dhali doonin haddaynaan isku wada niyad iyo isku noqonin maxaan ku dhahay inaan mawqaf wada yeelan oo inaan dad si dhaba wixii jirana u qaybsan oo inaan si cadaalad u qaybsan niyaddeenna iyo qalbigeennuna aanu isku furaanin ciiduun hadday meel timaado ama wax samayso aan ka damqanno ka kalena la arki waayo oo go'aan la saaro no wax shaqaynaya maaha oo soo bixi mayso waxaan ku soo gabagabaynayaa dadka Soomaaliland waa dadka isku xidhan waa dadka meel walba jooga nin baa imka halkan hoosteeda ka hadlayo wuxuu yidhi
waxaa isku wada keenay adeer waxaa isku keenay meesha aqoon baa taalla xadaarad baa taalla soo maad garan eerboorka iyo toon ka samee ka samee jaamacada ka samee warkaasaa lagu yimi doonaa